السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان تيم كتبك أفكس iyo dhammaan dhalinyarada ku jirta suuqani forex ee Soomaaliyeed insha Allah maanta waxaan bartan ku duubi doonaa cashar muhiim ah oo mataqaana aniga soo maray oo iga soo maray suuqani forex oo ahaa sideen hal maalin u badiba 2 days ka dhig sideen laba cisho gudahood ku khasaariyey $1,000 oo aan ku shubtay akoonkayga oo aniga lacagtayda gaarka ah ahayd on prop account ahayn laakiin ka timid jeebkayga yani xanuunkay leedahay waad dareemi kartaa inaad hal maalin ku lumiso casharada caynkaasiyana dee xiliyo mataqaana aad u muhiimi waa soo qaatay baan odhan karaayo haddaanan xanuunka caynkaasi soo arkeen maan barteen waa maxay risk management maanta maan barteen oo ilaa maanta waxaan ahaan lahaa qof raadiye waa maxay risk management laakiin dhirbaaxadii intaan lekeedan kala soo kulmay ayaan mataqaanaa wax badan aan ka bartay idinkana waxaan rajeynaya insha allah casharka aniga igu dhacay idinkuna wax ka qaadataan oo ku cibro qaadasho ahaan ayaan u duubaya wax badan centerka u sameynay se intaasoo bib uga qabanay se waxaa u sameynay se lacagta lagu sameynay waa digaarka jirteen laakiin maanta waxaan rabaa inaan duubo seen ku khasaariyo $1,000 oo mataqaanaa ku jirta hantidayda mataqaanaa jeebkayga kasoo go'day seen ku khasaari marka insha allahu toos baan u geli doonaa inaan dheereeyana ma jecli hadalka horaan ka bilaabi doono sida halkan uga jeedaan sida barta uga jeedaan accountkaas 2021kii ayaan furtay 2021kii bishii labaad baan malay inay ahayd ayaan furtay accountka waxaan deposit gareeyay $1,000 waad arkaysaan mataqaanaa real inuu ahaa laakiin mushkiladda jirta waxay tahay horta dadka xasuusaha reeba mihi inta badan jecelin xasuusaha reebaan laakiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray inaan ka reebo 3 sawiroo keliya ta accountka intaa leeg akoonkaasna mataqaana inaan reebana laftigayga waxay ii tahay xasuus gooniyo oo mar kasta oon dib u daawado casharadii caynkaasaan soo maray aad aan uga qoslo marna aan aad mataqaana ula yaabo san wax u trade garan jiray anu ma odhan karo xilligaa waan trade garan jiray waan gambling garan jiray baan odhan karaa waayo akoonkaas isla maalinka koowaad aan furay waxaan ka galay tradeka USD card one lot risk management looma eegin lot caynkaas ma shaqaynayo waxa looma eegi jirin waa just do it bay ahayd waa dasaan dareemayo waayo inaad one lot ku riixdo mushkilada jirta waa maxay no stop loss and no TB how labadaas midna maan isticmaalin waan ku sii daayay lacagtaas aniga kole qof kastana opinionkiisa waa uga furan tahay xagga commentka inuu mataqaanaa uu kusoo darsado tradekaas wax badan khasaare kala ma kulmin laakiin ka ugu badan dharbaaxada ugu weyn geystay waa ninkan waa goldi isla goldi waxaad moodaa in mataqaanaa lodkaygu macquul ahaa xilliga lodkan isticmaalay lod macquul oo ahaa laakiin mushkiladda jirtaa ah inaanan isticmaali jirin waxa dhahdo TB stop loss maba waan aqaanay laakiin ma garanayo halkay iga mari jireen bal waxyaalaha ugu layaabka badan leh xilliyada la soo kulminayo ku jirtay idinkana mataqaanaa cashar haydin ahaato oo mar kastood wax trade garaynayso aad trading ku jirto you have to make sure inaad isticmaalayso the proper risk management haddaanad isticmaalaynin risk managementiga ugu habboona ama aanad garanaynin at least never ever do inaad furato account ha ku shubin broker lacagaas ka shubin hana mataqaanaa hana gelinin maxaa la jiray prof prime account ha furanin sababtu wax kale ma aha horta suuq waa mentality game waa psychology game waa sababaha inta ugu badan aan focuska u saaro inaan ka hadlo mawaadiicda ku saabsan risk managementiga iyo psychologyga psychologygagu hadduusan iska xajin karin lacagta anigu wax u gelgelay waxay ahayd lacag baad haysaa akoon baad haysaa trade garaybayga ahayd laakiin umaan eegaynin ma ku habboonayd ma kanaa ku habboona maya laakiin mas-uuliyad ma saari waxaan lahaa akoon baad gacanta ku haysaa suuq baa ku dhaafaya fursad baa ku dhaafaysa maanta ku dhaafaysa hore ka gal ilaahay u naxariista akoonkaana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idinkana casharo badan haydin haata insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu